munaasabadan oo loogu dabaaldegayay xuska maalinta macalinka oo ku aastaysan 21 November ayaa waxaa sidoo kale ku lamaana sanad guurada saddexaad ee ka soo wareegatay aasaaska dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Muqdisho. inta xafladda ay socotay ayaa waxaa lagu soo bandhigay qiimaha macalinka uu leeyahay iyo sida loo xuso. 21 November 1974 ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka, waxaana shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda militariga ahaydba ay si wada jir ah u muujin jireen muhiimadda macalinka uu leeyahay. sidoo kale waxaa madasha lagu xusay in horumarka dalka ka socda uu qayb ka yahay macalinka maadaama uu yahay soo saare. qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa dhankooda u hambalyeeyay bahda dugsiyada gaarka loo leeyahay ee Muqdisho iyo xuska maalinta macalinka oo ku beegan maanta oo kale. waxaa 3 sano laga joogaa aasaaskii Muqdisho Private Schools iskuulada gaarka loo leeyahay ee Soomaaliyeed. muddadii aan jirnay waxa inoo qabsoomay howlo aad u fara badan. waxaa kaloo ku lifaaqan maanta oo ay tahay 21 November oo isku beegantay aasaaskii Muqdisho Private Schools iyo maxaa la dhahay maalinta macalinka Soomaaliyeed. waxaa isdul saaran laba munaasabadood oo aad u qiimo badan. kolay qof walba uu ka dhigay maanta macalinka Soomaaliyeed qiimaha uu leeyahay iyo maalintan qaybta ay ku fadhiday insha Allah. macalinka anagana xuquuq ayaan ku leenahay, asna xuquuq ayuu nagu leeyahay. Imam Ghazali wuxuu leeyahay macalinka iyo waalidka markii la isbarbar dhigo yaa xuquuq badan. wuxuu tilmaamayaa Imam Ghazali wuxuu leeyahay waxa xuquuq badan waalidka ayaa waxa xuquuq badan macalinka ayaa xuquuq badan u leeyahay. marka xuquuqda macalinka meesha kaliya oo la gaarsiiyay inay weyn tahay sidaas ay u dareemaysaa. macalinka inuu yahay qof ku xiran bulshadiisa ku xiran, bulshada iyo macalinka inay isku xiran yihiin, inay meel wax wada wadaan, ixtiraamkaasna ma taqaan wada. waxaan rajaynayaa tilmaamahaas inay yihiin tilmaamo oo ama haddeertaan qaar badan macallimiin ay isticmaalayaan ama loo baahan yahay in la soo celiyo mataqaanaa. macalinka waajib ka saaran wuxuu yahay inuu diyaariyo jiilka soo socda, inuu diyaariyo maanta. sababta hal maalin loogu gaar yeelay waxa ay tahay macalinka wuxuu mudan saacad kasta daqiiqad kasta inuu maskaxdeena ku jiro. laakiin maadaama maalin haloo asteeyo leeyri macnada waxay tahay inaan macalinka laga warhayo, bulshadu ay dareento mas'uuliyadda iyo xilka uu hayo. macalinka ka soo bilow dugsi quraanka waa qaari'ul quraan, culimada kale waa u aqoon badan yahay. waxaa keenaya maalin walba u bixinaya arday wax baraya maalin walba. macalinka iskuulku maadada oo dhigo oo muddo dhigayay maalinta dambe dusha uu ka xifdinaya. sidaa daraaddeed waa badanaya kulama la bixiyo, maalkuna waa yaraana, marka waa ka faa'iido badan yahay. sanad waliba maanta oo kale 21 November ayaa Soomaaliya laga xusaa maalinta macalinka iyadoo ay ka soo wareegatay 49 sano. Maxamed Cabdiraxmaan, warbaahinta qaranka, Muqdisho.